بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما بعد صحابي waxaynu qaadan doonaa cashirkeena lixaad oo ku saabsanaan doona siraha ku jira WhatsApp-ka insha Allah bismillaahi kariim ilaa 3 meelahaas ayaan kasoo sameyn doonaa marka maanta waxaan qaadan doonaa sirihii koobaad gaar ahaan WhatsApp notification-ka siraha ku jira ayaynu qaadan doonaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan isleeyahay maaragtay asxaabta iyo dadka iyo walaalaha waxbaad ku tari kartaa baan insha Allah bismillaahi kariim sidaan uga barnay channelkeena oo soo geliyaa waxaan tagaynaa WhatsApp-ka markaad tagtid WhatsApp-kaaga markaad soo kicisid tagtid waxaad ku dhufanaysaa halka saddexda dhibcood ee sare ay ku qoran yihiin ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid waxaad tagaysaa notification meesha ku qoran tahay notification-ka waxa ku jira message-yadii call-iski iyo group-iski messages waxa weeye dadka luuqyada kala soo hadlayay iyo maaragtay halkan sare ee onta dadka qaar way ka xidhan tahay qaarna waa on waa dhawaqa bixinaya marka message lagu soo diro ma iska furaysaa ama call lagu soo garaaco in aan wax dhawaqa oo garaacitaan ah ku soo gelin ee call-kiisi silence uu isaga soo galo ayaad ku sheegaysaa halkan waa maxay notification tankan waxa weeye in aad ku xidhatid codka doontid aad ka dhigatid inaad codka doontid aad ka dhigan karaysid dhawaqa message-da ku soo gala anigu taa originalka baan insha Allah default-ka ayaan isaga daystay halkan waxa ku qoran hadaba halkan waa muhiim pop up notification ku tolo maxay tartaa pop up notification ku waxay ku taraysaa in adiga oo ama YouTube ku jira cashar kala socda ama Instagram ku jira ama wax kale ku jira in aad si fudud WhatsApp-kaaga uga jawaabi karto haddii lagu la soo hadlo qofka aad doonayso inaad u jawaabi karto qofka aad rabina aad u jawaabi karin sidee yacni tusaale ahaan sida messenger-ka kale messenger-ka waxaad ka hadli kartaa ka jawaabi kartaa adoo YouTube ku jira ama adigoo Instagram ku jira ama adigoo WhatsApp-kaaga ku jira ayaad haddana Instagram-ka ayaad messenger-ka ka hadli kartaa sidaas si lamid ah ayay ku sahlaysaa hadaba wuxuu ku leeyahay pop up notification-kaagu waa non pop up kuma furna ma waxaad ka dhiganaysaa only when screen on marka uun keliya uu screen-ku on yahay ee uu shidan yahay mobilka shaashadiisu mise marka keliya uu screen-ku yahay off uu dansan yahay ama log out garaysan yahay screen-ku mise always markasta ma always show baan ku leeyahay pop up markasta tus aniga mar haddii mobilkayga dab ku jiro uu daaran yahay internetna ku furan yahay waa inuu message-ku ii soo boodaa anigoo program-kan doono ku jira isticmaalaya waa inuu ii soo boodaa ayaan leeyahay dadna halka ayaad ku dhufanaysaa halkan waa light-kii ma white baad ka dhigan ma red baad ka dhigan ma yellow baad ka dhigan ma green baad ka dhigan ma camber adiga ikhtiyaar kale halkan waa maxay daba halkan waxa weeye si dhaqsiyo badan oo aad u muhiimsan ayuu kuu soo saarayaa notification-kii ama aad xagga sare uga la soconaysaa smartphone-ka oo dhan baa maaragtay mobilada sameeya haddaba halkan baa muhiima halkan waxa weeye group-iskii wuxuu ku leeyahay notification-ka groupka yacni marka group lagala soo hadlo tusaale ahaan mobilkaagii halkaa iska yaallo kale marka group lagula soo hadlayo marka luuqa qof gaari kaala soo hadlo waa in aad kala garan kartaa ay ku kala duwan yihiin oo dhawaq gaara uu groupkuna kugu soo gelayo dhawaq gaarana uu kugu soo gelayo qofka luuqa kaala soo hadlay groupkuna dhawaq gaara laba cod oo kala duwan laba ringi oo kala duwan inay kugu soo gelayaan ayuu ku leeyahay tusaale ahaan alfadaasaan ka dhiganayaaba anigu alfada ayaan ka dhiganayaa group-iska halkan waa green ku furanaysaa my off baan anigu iska siinayaa dhexdhexaad baa igu furnayd off baan iska siinaya green-ka mise default baad ka dhiganaysaa oo dhexdhexaad ama short oo gaaban ma long oo dheer green aad u dheer halkan waa iska light-kii halkanna waa sidii tii hore waa notification priority waa use high priority notification weeye halkan waa ringtone oo aad cod gaara ka dhiganaysid halkanna waa gariirka call-ku ma gariir buu leeyahay mise gariir male off baad iska siinaysaa insha Allah bismillaahi kariim cashirkeenu intaasuu inugu koobnaan doonaa oo ay ugu muhiimsan tahay in adiga oo WhatsApp-kaaga aad ka hadli kartid ka jawaabi kartid qofna aad kala hadli kartid adigoo ku jira programmadaada kale sida messenger-ka oo kale uu kuu soo boodayo message-kii marka lagula soo hadlo insha Allah bismillaahi kariim